kulanti waxaan wanaagsan daawadayaal meel wala aad joogtaan ku soo dhawaada barnaamijkeena hibe iyo hal abuur barnaamijkeena hibe iyo hal abuur waxa marti inoogu Mubaarak Yuusuf Dheeg soo dhawa Mubaarak atuma hore barnaamijka assalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatuh ayaan khadar cali waan dhawahay walaal aad baan idinku dhaway adiga iyo Cabdirasaaq iyo Aydruus baad baan u salaamayaa iyo dhammaan bahda some films aad baan kaaga qaadnay walaalo bal marka hore Mubaarak ahaan Mubaarakow anigu waxaan marka doonayaa marka u horeysa inaad bal taariikh nololeedkaaga intiin barnaamijka u gudagelin oo dhinaca maansooyinkii gabayadii heesaha ku jira xataa aanin u gelin inaan ku bilowno bal horta marka hore taariikhdaada oo kooban inaan intii ku taqaaniin inta kale صح وين تاريخ هذا horta ayaanay anigu dhalinyarta magaalada Hargeysa hal abuur kale ayaan kamid ahay kullay gugayguna ma weyna waxa weeyaan arday baan ahaa aduu dhawaan baan jaamacadda ka baxay waxa weeyaan dugsi quraankii iyo malxaamadihii iyo waxbarashadii Hargeysaan ku dhameeyay Hargeysaan ku dhashay Hargeysaan ku koray Hargeysaan ku barbaaray kullay taariikh nololeedkayga ninniyo balaaya ka dhacdayna miihiyo meelo badan soo marmaray ma garanaysa inta saaba taariikh u filan taariikhna waa ku dambaysaa bal hadaba waxaan ku bilaabaynaa maanta la yiraahdo badbaad maasadaasi iyo sidii ay ku timid ay ku curisay badbaado waa wax badbaado weeyaan in wax la badbaadiyana la doonayaa maasadana waad ka dhaxarki doontaa ayaanay maasadana horta waxay curatay 2016 bay ahayd marka waxay kamid ahayd maasadan badbaado silsilad maanseed annaka iyo nimanaan u saaxiibanay waa aniga Mubaarak ahaan iyo nimanaan u saaxiibanay oo iyaguna bahda hal abuurka una aan wadaagnay marka hadiya jeeraale waadiga arkayo dhalinyartu habeenkii way iska sheekaysataayo waaqiciga iyo wadciga iyo halkay wax marayaan iyo waxba la isku weydiiyaa maasadan badbaado habeenada kamid ah anagu dhalinyarta hal abuur kale aan asxaabtanay wadaagayna adigu sheeko sheekooyinkan wadaagi jirnay ayaa waxa dhacday adigu waayaha dalka ayaanu islam adigu ku soo darnay sheekooyinkaygii marka aad ba xaaladda dalka iyo sidii waxyeen iyo siyaasad xumada iyo hadba abwaanku saasuu ka hadlayo waa bulshada maaragtay muraayada marka adu waxyaabo badan oo qaldana ayaanu silsilada ku wadaagnay marka silsiladaas waxay ka koobnayd ku dhawaad ilaa 4 maaso oo aanu 4 hal abuur isweydaarsanay marka midkayga mar ayuunbu xagiisa wuxuu ka qabaa aragti ahaan uu ka hadlay marka ma sidan badbaado hadaan ku bilaabo waxay ku bilaamaysaa bisinkiyo quraankan ku bilaabay maasada inta lagu badbaadaan ku xayndaabay baalaha markii xiga bariidada gob ku baaqday farqasan ma joogtaan ma bad qabaa abwaanku buruudkii ma leeyo halkay laba banaystaan haday beelaha leedahay ma sheega buraalow abwaanku gaadhun buu taagay hadda ma garanaysaa waa bogasha taasina aan ku biirsataydana barta hadalku leeyahay hadaan laga bilaabayn waa bixisa doodiye boga laabta hoosiye beerkaygu wuxuu qabo aan idin bayaanshay nabarkan bogshiyeeday wixii lagu bogsiin lahaa boloolaan ka qaado baryahanba maan lidin barbarrada ma aan dhigin bayluuli daayo ma haleelin barkimada wax ibaabay mooyee boogtayda heli waa una kacay boqolkii halkay baantu taallo xalay baadidoonkii waxaan buura iyo qow baxsanow ka soo dhaco baradii markaanimi iska daabaxnaaniya bisay laygu sooree kalax biyaamaan helin kolay tahay baqbeeniyo
burcadlayma siinine maxaa kaaga baxay taa waa dhalinyartii dalkii u baahnayd in wax lala qabto oo mustaqbalkooda laga fikiro oo waxa weeyaan dee noloshu intan way ka badan tahay dalkuna dee waa dal korayey waxa weeyaan dalkuna wuxuu wax ku noqon karaa waa dhalinyartiisa marka imika dhalinyartiibaa waxay leeyihiinba waxba dee noloma qabanaya sideebana anagu wax u gaari karnaa hadda ma garanaysaa marka wuxuu leeyahay baaqaygu wuxuu yahay dhulku waa badan yahoon waa baaxad weynye dad hadduu baratamo boodhkiiyo habaaska isbarkado dushayda oo meesha laygu beeraa bilicdeedu darantoo muuqiyo bidhaantay ka abaaday beri hore oo dee dalkii marka saa loo soo galay ee la arka dhalinyaro bilaa camala ee la arka dad ma garanaysaa iska saboola ee la arko dee waxa weeyaan magaalooyinkaaga marka la yimaadee dadka kala yimaadaan magaalooyinkaaga waa muraayadii waxaad sheegaysiidii hadda ma garanaysaa marka على meesha laygu beeraa bilicdeedu darantoo muuqiyo bidhaantay ka abaaday beri hore bulshadii iyo dadkayguna ma boqoradaan hal doorkoo waxay bilada siiyaan midaan boobka mooye beelahdaba u taagnay adoo galay badweyn oo booraan ku dhaadhacay badidood naf iyo maal markaad kala boqoosheen badraan kaa dhaqaaqoo boodka uun ku meeraa makaa saari biima moomayde soo maaha nin dantiisa 100 jeer loogu soo bannaan baxo iskii labada biixiyood iyo isku taagin bowdadu ma baayaca hankayga ninka beel dugsanayow babta hoose iga daa galabtaan baraarugo kuma beegsanayo waa inamada la yidhaahdo marka wax la dooranayo baa la xasuustaa nidaamkii reeriisimkii iyo garaweyshinkii iyo tiradii ma garanaysaa kuma beegsanayee babta hoose iga daa galabtaan baraarugo kuma beegsanaye runtaa lagu badhaadho rabbi baraka siiye inkastoo la baalmaro maanta been inkastoo la baalmaro maanta beeni roon tahay ninka boole cunayow adig iyo badheerka boqorkii iyo karbaashkii baaqaygu wuxuu yahay tukihii baalka caddaa birmageyda muu tabin mana hagin barbaartii rajada la bud dhigo quusbaa bandiiradda saaka baarka loo suray dadku way wada quusteen barabaraalow waraabihii madiix baajin waayaa isna beledka joogo barqasoofka maandeeq hadduu baal ka raac yidhi baad ku weecan maysee cumarow bal ii sheeg waxaan saaka ugu baqay nirigteenna baarcad iyo baraarka naxay maansidana halkaasoo ku dhammaato ninkaan saaxiibka nibaan su-aal weydiinaya markaa allaylehe waxaan ku wari abwaanku sidiisaba wuxuu ka hadlaa hadba xaaladda amba marxaladda taagan bulshada taagan ayuu ka hadlaa waa dareenka keliyaatay mar walba ee dadka cabira dareenka bulshada waa oran karaa rabba gaarka noo diray baan idhahnaa markay dadku idhaahdaan maxay idin rabba gaarka noo diray baan idhahnaa waa dadka aan la heli karin haddii la waayana ay waxyaabo badan iska bedelayaan bal gabaygu waxaa la yidhaahdaa waa maansada gud ka mid ah bal maxaad maansooyinka anigoo horta maansadaada u soo noqonaya diga hoos ka nool oo erigaasna eri aad u miisaan culus bal horta maansooyinka waxaan oran karnaa miisaad ka tarisay adigu wallaahi niyow horta maansooyinka iyo suugaanta niyow anigu aad horta uguma badnin laakiin mararkay ku qabato anigii kulahaa rabbaa gaarka noo diray waan mariyaa hadda ma garanaysaa marka adigu waxoogay baan imika halkan doonayaa inaan kugula wadaago waxa ka mid ah gabayo dhowraba adigu halkan ku jira marka inta u badan gabayada maansooyinka iyo gabayada aad ka hadasho inkastoo suwan tahay noocyada ay kala yihiin cabiraada ugu weyn inta ugu badan iyo qaybaha ay noqoto maansadu wasamayso inta ugu badan dadku horta su-aashan ku weydiinaya waxa weeyaan inta u badan dadku meeqa alaaburnimadan iyo abwaannimadan iska dhig mise waa wax ilaahay bixiyo oo rabahi wallaahi niyow horta berigii hore hibay ayaan khadaray berigii hore dadku laba si bay u gabi jireen horta dadku ama caashaq bay la gabi jireen oo dad badan baa dee ku caan baxay oo cilmi boodhari ka bidiyaho ninkii way ciil hadleen waxa kaloo jira in lala gabiyo ciil oo dadku ay ciil la gabiyaan oo ciil hadlaan oo ay dareenkooda ay ku gudbiyaan markaa niyow dareemadu way isbedbedelaan mar walba oo bulsho walbaaba
hadda markaan ku leeyahay ciila ma caashaq baa dadka keeni jiray waa waqtiyadii hore iminkana waxaa laga yaabaa inuu ka keeno sidoo kale waxaa jirta hibo iyo hoodaba inuu qofku ku helo dee suugaantu mar uu qofku dee hibo u leeyahay inta badan waa la isweydiiyay oo dadkan maaragtay dadku isku wada jiraan haddana waxa laga yaabaa 100kii qof inuu hal qof ka soo baxo oo 1000kii qof ay 10 ka soo baxaan aanay dadku wada noqonin bal waxay dadku wada heli waayeen ma wax la bartaaba ma wallahi horta niyo markaad maqasho ayaa khadray gabay markaad maqasho ereyga gabay ayaa wuxuu u taagan yahay kii gabay ninkiisa eeg af baa ku gabay marka nin imaka gabayaayo uu gabay tiriyo ina tirin karin de waxa weeyaan uu ku gabay afkaagi baa ku gabay marka ereygan gabay baa halkaaba ka soo jeedaba marka dadka oo dhani waxay wada heli karaan wax la baran karana ma aha inkastoo anigu islaam malaha barashaad ku keentayo de New York halabuurnimada iyo suugaanta waqtiyada aan waxa jirtay aanan laba erey haddaan sharaxdo dee suuge aanay suugin jirin oo laakiin waqtiga aad u horeysay waqtigii aan suugaanta doonayay inaan curiyo waqtigii aan doonayay inaan balmaqaansa iyadoo dee aan kaashanayay garaadkayga iyo maskaxdayda wixii ku jiray oo dee iyagu qudhigooda bud dhigay halabuurnimadayda ayaan haddana ma garanaysaa dadaal badan aan ku bixiyay marka waxaynu ku nasan doonaa maansa la yiraahdo iyadna digo hoos ka nool maansadaas ay jirtaa in ereygu aad u miisaan culus mubaarigo bal maansada iyo walaal ayaan khadaray maansadan digo hoos ka nool horta bariyo dhaweyd baan soo saaray bariyo dhaweyd baan alifay wax kale uma alifine waxaan u alifayun hadiya jeeraale dadkeenu waxaad moodaa inay xaggii qabyaaladda ay u yara bateen oo ay u sii janjeersameen marka iyadoo dareenkaasi igu jiro ayaan waxaan doorbiday oo aan damcay inaan bal dadka maanse yaroo kooban oo bal qabyaaladda iyo siday u xuntay iyo sida aanay waxba u goynin iyo siday raqiiska u tahay iyo dowladnimadu inay ka weyn tahay maanta haddii loo bareero oo dowladnimo iyo hawsheeda loo bareero inay dowladnimadu ay ka weyn tahay qabyaaladda aan markaa dareenkayga ku cabiro waayahay haddaba maansadaasi diga hoos ka nool baynu bal daawadayaasha horta waad weydiiso ereygu waa erey culus baad igu jiro horta waa digo hoos ka noolo waxa weyn digo hoos ka nooli mar ay ku gubiba marun bay ku gubaysaa laguma degdega markaa qabyaaladuna waa digo hoos ka noolo haddaanad waxay ka bilaamaysaa murtidii xulkeedii dulucdii iyo hanaankii dabuubtii iyo tixdii gabay halabuurku muudayn mana gurin darkeedii dawliskeeda lama gabin dareen waa halkiisii waa habkii digtoonidu halahaata daraje weli maaragtaa waxaan gaadhkii unbaan ku jirnay dayaan shisho ku eekaama ka filay dushaydo ma la tumay durbaanada dhimbiil daadsanayd iyo dabku qiiq ha yeeshee dambas baa wax gubi kara anuun gelin dubaa qaba dabayluhu ma horiyeen intuu qaaday duufaan ma gaadhsiiyey duurkii dunqulaal dhimbiilaha ma deeqsiiyey xaabkii waa duni bay dee kugu ololinaysaa ma garanaysa dacal kale ujeedada dalandoolka waayaha xaqiiqa aan ku deexdo diirka aan ka qaaday dabar laguma joojiyo lagu soo dabaalo lama doorin xumihii horaa looga dardaarmee dadku dhagama yeeshaan danaystiyo mid liitiyo midaan damqanayn iyo daalimiinta kama koro lama doorto ruux kale dookuwa iyagoo qura anna ducaduceeyo haba durugsanaato daaqsin geel ha noqotee doorsoonka samankiyo waayahan dareersamay dabcigooda maan helin duug wixii lahaan jiray damcii ma yeeshaan daalkiiyo dhibkii shalay damcii ma yeeshaan ha yeeshee damiir xumo daalkiiyo dhibkii shalay maantay ka darantoo duuma soo kacaysaa lagu wada duroodo diif ku reebta geygoo da'yartiiyo barbaartiiyo ilaa daanciroolaha dacarteedu gaadho dawadeedu adag tahay ilaa daanciroolaha daaduun ku reebtoo dacarteedu gaadho dawadeedu adag tahay waxaan uga dan leeyahay diirkaan ka qaadee mid kasii xundi hatoo duqdu waa sideedii dambarkeedu waa kii nin durduurtay baa jira doobiga rag ba u cula habeen aanay darajayn hadday maalin deeqiyo ka helaan wax doojiya waa qabyaaladii ma garanaysaa hadday maalin deeqiyo ka helaan wax doojiya barray daadiyaanoo layswada danqaabaa afartaa ducdiisii dadabtii horraysiyo aqal laba daryaalaa
dabka ma ugu wada shiday inta damqanaysay damiirkoodu nool yahay. waynagan dar jiirne waa dadkii ma garanaysa dadkii baan imika la hadlaya waynagan dar jiirne isu wada dudayne isu wada dulayne kala wada didayne bal maxay daweysaa dabiibtaa qabyaaladii bal maxay dux leedahay dadna tari karaysaa inay dumiso mooye goormay danguudiyo dowladnimada sheegtaa diinta iyo sunnaha jira sharciga iyo dastuurada dood miyay ku leedahay waa may soo maaha dood miyay ku leedahay dakhar iyo dhibbadan ley darxumooyin baasley dakaniyo colaadiyo dacas iyo dhibaatiyo dooxatooyinkii iyo dibu socod lagaa dhaxal daxalee han iyo baar daacad ruux ahaan jiray hadba dayaxa soo baxa dami oo madoobee marna daabaqaadii mari duulku aaminay soo kici dilaalada doofaarro kuu xulan didi waayo aragoo dalba jaahiliintii digashada marfaalle dura iyo wixii jiray waa waqti horun baa lagu celcelinayaa lagu odhanaya reerkiina waxaa ahaan jiray qoyskan kale waxaan ahaan jiray aada ma garanayso biro hore dhacay dalba jaahiliintii digashada marfaalle dura iyo wixii jiray dawanada garaacoo diradiraalaybaatte dad waxaanu geyi jirin hoosna looba dayi jirin dalandali warkoodo iyadoo ah daacuun ka dhig malabka doocaan yacni waxaa lagu odhanayaa reerbaa halkaa ka boodayoo reerbaa halkaa sameeyeyoo hadda wax dadnimada u wanaagsanna maaha waa nin walaalkii dilay uundii nin walaalkii dilay uunbaa marka ayuunbay ka dhigaysaa wax macaan haddaynaan dabar jarin haddaynaan ka diga rogan dalqadeeda wada furin haddaynaan dugsoon ma leh dumeesheeda wada nicin haddaynaan dabkeediyo ololkeeda wada demin danab roobku keeniyo digo hoos ka nooliba marbay degalabi'iyaan ku dhammaato duunyadu dareenkuna wuxuu yidhi aarnimuu dilaayiyo doqonuu wadkii galay duddaduu ku dhiman lahaa suu dahabkuuma yaal yacni haddaad halkaad ku dhimanayso waxa weeye halkaa aad ku dhimanayso dee aad ku baaba'ayso waxa weeyaan ayuunbaa lagu qurxiyaa walow kaana habaqlaba ha ahaatee ama meel aar ku jiraba ha noqotee adiga dahab baa halkaa lagu dhigaya lan waad ku baxaysaa markaa qabyaalada malaa dahab baa laynoo saaray waa tahay mubaarak yuusuf leeg bal markii ay waxaad noo sheegtaa adistir waxbaad oran karaysaa waqtigii wallaahi walaal horta waqtiyo horey haydo inkastoona dee muddadii iyo waqtigii garanayn laakiin haddana ilaa 8 sannadood meelaha ilaa 9 sannadood ayaa kasoo wareegay waqtiyadii aan standar 8ka ahaa iyo form 1kaygii iyo ilaa form 2gaygii waqtiyada waan curin jiray suugaanta oo heesaha yaryar ee gaagaaban ayaan waqtigaa qori jiray oo aan alifi jiray waa tahay gabay alla bari leedahay ayaa jira haye gabaygaas yaan jeclaan lahay inuu bulshada la wadaago sax gabaygan alla bari horta waxaan curiyay isagana isla 2006 waqtiyadaas ay maansadan badbaadiya ay soo baxeen ayaan gabaygana curiyay markaa gabaygani sida ku muuqata waa alla bari gabaygan markaa 2016 inaad ka warhayso mooyaane dalka abaaro xoogo odalula ayaaba bari iyo galbeedba ka dhacay markaa waxaan door biday bal niyow inaan duceeyo oo weliba ducadana aan dadka u mariyo wixii aan ma garanaysaa ee alifi jiray iyo suugaantii iyo aan halkaa dadka ma garanaysaa ee uga duceeyo gabaygan kuu bilaabaya wuxuu odhanayaa gabaygu allihii adduunyada gingimee giijay udubkeedu allihii samada gibilkeediyo gaadhka sara uumow allihii arlada goglaye guudka naga saarow allihii badaha guuxa iyo gacmada abuurow allihii webi ganaana iyo gebiyada alkumayow allihii xoolahaanu godolniyo geela noogu deeqow allihii dhirtiiyo geedaha gasiin noogu reebow intii gudubu roortiyo intii garab ku baallayi allahay dartii ku gooshtee hurdo lagu gamaayow addoon baanahay guddoonsaday diinta gaarka ah addoon baanahay waajibyada gutoo guday xilkiisiiye addoon baanahay waxyiga guntadoo geliyey laabtiis addoon baanahay nebigiisa garan gooriya ayaane addoon baanahay gacmaha horsadoon baryadii gabin gurmad male aadamuhu gacalna yeelkiiye addoon baanahay gargaarkii raba galladahaagii cirkoo gudhangaygoo abaaroo gobolna naafoobay adigaa gudgudaha roobkiiyo geydha soo diree adigaa gunaanadaha raadgoo habaareede
adigaan raxmaddaada guud laga gayoonayne intay ducadu way gudboontahay xilla gudanayo garbay nagu tahay baryadu gebi ahaanteede allahayow intaa waa gafnaa guracno noo dheere allahayow kuma gaasirno waa gulmoonnahaye allahayow gubay dadkaagii gooshkan maanta ahe allahayow gaajana u dheer gabanadii allahayow gaajana u dheer gubannadii xeebe allahayow guunyaa idlaatiyo gabanadeedii yaa allahayow adigaa gufaaciyo allahayow adigaa gufaaciyo geydha soo dira eh allahayow gudguda allahayow adaa gudgudiya adaa gembiye dhoolkiiye allahayow guddoonsii nimcada afarta geesoodba xareed galacliyo allow wada sii guga dhibicdiisa oo waxaabana shiri malaha maalmahan sidaa u tiriyey gabaygaa ayaa roobkiina da-ay haa ilaahay ducadii ajiibay roobkiina waa iska da-ay gabaygaasina alla bari buu haayo inahaasoo adigu ku eeka waa tahay daawadayaal waxaaynu bartan kaga jirnaa barnaamijkeennii hibe iyo hal abuur maantana waxaa marti inugu hawan mar koobaadii mar labaadba uga mahad celinaynaa mubaarig yuusuf dheeg onlinekastoo mahadsan tahay mubaarigow sugaanta imika iyo sugaanta hore waxay ku kala duwan yihiin oo aragti ahaan aad sheegi karta ma jirtaa wallaahi walal way kala duwan yihiinoo waxay ku kala duwan yihiin sugaantu horta waktigii hore waxay ahayd afku marba marka ka sii dambaysa yani af Soomaaligan aynu ku hadlayna marba marka ka sii dambaysa waxa weeyaan waxaad moodaa inuu sii yaraanayo oo uu khafiifayo oo ama garanaysaa aanu mucdi iyo xoogii iyo awoodii u lahayn jiray mubaarigu uga faa'iideysto dhinaca aad ka kororsataan aqoon marti uga noqotaan sax marka gabayadu waqtiga hore de gabaya afkina wuxuu ganaa suugaantu xoog bay lahayd mid kale waxa kaliya ah communication-ka ama lagu wada xiriiro lagu wada hadlo gabaygu waxa marka kulay de gabayaagii hore iyo marka lagu dhaahdo in raaga ugaasiyo waxa weeyaan qamaan bulxan iyo qowdhan ducaale iyo isalaan carabiya nimanka imika suugaantoodii marka la soo hadal qaadin marka aniga mubaariga de la shaayo barbardhigo de sheeka iyo waxa isku noqonayaan anigu sidaan aaminsanahay sheeka iyo waxa isku noqonayaan de suugaan walaal marka kulay suugaantii hore iyo suugaantay marka waxa u dhaxeeya farqi weyn baa u dhaxeeya aad dad ma hadsan tahay aqoonta waliba anagu ka faa'iidnay waayo waxa tahay wax wixii ku dhex jira suugaantii 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 oo kala dhacaysa iyo siday u kala dhacayeen ay kala tahay aad u kala garanaya waliba in badan baan daraasiyay suugaanta walaalo waxa weeyaan barnaamij kale inta iyada ka dhigan doonaa insha Allah walaalo laakiin aqoonta suugaantu waa aqoon aad u fara badan walaalo aad bad mahadsantahay walaal mar koobaad iyo mar labaad barnaamij kalena waan kugu soo marti gelin doonaa waa da'yarta in la helo ay adag tahay sabankan imika aynu joogno waxa jirta maaso mukulaal la yiraahdo sidoo kale mubaarigow in badan bay dadku jeclaayeen inaan mubaarig iyo anagu intaan soo fadhiisano in badan dadkii tabeeyay baa tahay mubaarigow waxa jirta maaso la yiraahdo mukulaal bal maasadaasi mukulaal ayaan jeclaan lahaa in bulshada loo wadaagno ayaan khadaray maasadan mukulaal waxay kamid ahayd maasooyinkii aan waqtiyada adigu hore ee ilaa 2018 waqtiyada maasooyinka aan curin jirnay marka maasadan waxa iyaduna kamid ahayd silsilad kale silsilad maaseed ahayd oo 2017 hal abuur dhowr dhex martay oo adu Xasan Daahir Weersami iyo Cabdullaahi Xasan Ganiye nimankaasi ay u horeeyeen marka laguma kala harin maasadana marka kamid ahayd oo aan waqtiga ku darsadayo oo waqtigii baarlamaankana aad loogu kacsanaaye waxa weeyaan adigu arrimo iska qalalaaso inuu keeni karayna waqtiga way jireen marka maasada mar waxaan dhaliilaya nimanka xildhibaanada ee baarlamaanka adoo runtii socota mar waan waaninaya mar waxa weeyaan iyagan huga tusaaleynayo kulleeyde anagu dadka yara dhaliilsan baan waxa weeyaan inaanay sidii loogu talagalay wax u qabanin horta halka ugu dambayso waan sheegnaa bulshada dareenkeedii marka maansadu waxay ka bilaamaysaa ka mafsuuday weedhiya maasada haldoorka maqalkeedii marka waxaan ku hal qabsanayaa maasadii hore ee aan soo maqlay ee uu weersami tiriyo ma garanaysaa ka mafsuuday weedhiya maasada haldoorka maqalkeedu ii tabi 10 maanka garashadu ka istaagay meel adag aniguna miciinsaday milga darajaleediyo
milga darajaleyd iyo maalmataan ku duuliyo suugaanta maaxda ah iyo miida jiiftada marka xiga salaantiyo muxibiyo kalgacalkii halabuur midayn jiray anigoon marxinahayn ka bilaabay midigto gobonnimo ku maamulay mishigaanadii furay muujiya tixdaydana sidaan ahay maqiiqana meydal faras ku joogo mariideeyey seefta iyo maglaga iyo bilaawaha meydaanka soo galay oo miiganaantii maaweela waa shile midnimo ku dharshada intaa araar baa la dhahdaayo had iyo jeeraale hal abuurku intaa hore isagaa iska saddexdaasi maamuus maydhaxdan ka diiriyo murti weeye duurxula saddex kalena miisaan halmuceedyo gaariye mawjadii abwaanka iyo raggay maagtay weeyaan tala iga maroortaan masalooyinkeedii marisaa ka leeye halka maxastu taallaa meel abaara mooye majaraha qaloocdiyo tala iga maroortaan masalooyinkeedii marisaa ka leeye marageeda ii fura barta maxastu taallaa meel abaara weeye haddaan maagay guuraha inay guurto maatidu show midiidinkaygii madibaan ka joogaa kolkii ay magowdee maandeeq hasheennii laga gooyey maraqana dhay macaan waxaan sugo ilaan waa masiibee malow xerada joogiyo masasbaaba hoos galay waxaan yeeli mooye iyagaa masruufsada waa nimankii xildhibaanada ahaan buu sheegaya goor xalay mirtii dhexe dadku miyuru seexdeen ka maleegtay jiifka oo u maleegtay goobtuu caku mudanaheennay mooriyaantu dhaantiyo malafsiga nin doorbiday ka sharqoolay maatida mugdigii habeennimo margibalaqyadii iyo gebi mudanayaashii maqashiiye heestoo marka hore odhaahdii muran waan ka daalay midhkan waana uga dhiga markaa imika waanadii baan u soo galay mas-uulkaa la doorto sharaf sida mulaaxdii rabbi kugu mariimiyo rabbi kugu manaystiyo milgahaaga shaalkaa lama siista maaliyo magaabada halweydiiyo waxa dhuunta kuu mara mas-uulkaa la doorto mudnaantiiyo karaamada cisi lagama maarmee haddaad gaadho meel sare magacaa la dhowrtaa isha milixsigeeduna manka saaran loolida adoo moogan laagyada malagaaga oo galay muuse dhabaqayay oo dhan ismiidaamintaadana muuqaalku yuu hagin maanta waan la dardaarmayaa hibada aad mahiibtiyo shayga muunad kaa dhiga wax lagaaga maagiyo ha ka dhigin wax miinaa haddii lagu dhahdo un xildhibaan oo dadku intay afka isa saarsaaraan dhahdo war waa kii umada dhici jiray dee ceebteeda leedahay soo maaha haa saddexdaasi maamuus maydhaxdan ka diiriyo murti weeye duurxula saddex kalena miisaan halmuceedyo gaariyo mawjadii abwaankiyo maayad weeye soo maqan haddaan tixda maadiyo marka wanaagga la faray qaadan waayaan sidan ayaa loola hadlayaa haddaan tixda maadiyo ku mariimo sheekiya halay muhatay laabtani midhkaan uga gol leeyahay macnaheedu waa kana masaladan u fiirsada waxay meehanowdiyo waxay dibadda meertaba waxay muska joogtiyo waxay maqasha laysaba bisadii magaagnimo macaluul ku gabatay markay dahatay ee dhashay 8 wada mataana oo midabacan yahay muruqeeda eegtay micideeda lisatay midkii curad u noqon lahaa inta ay majeeratay ka bilowday madaxii mijaheeda dubatay tidhi alla macaana iyo mudanaheena sidii yahay maxbuus dila raganimo ka meydkii mase weeye kaliyo miliq sugana waa kii ujeedada mucdeedana maldahaadu waa sire mashaqada ku guud furay mudanaha ku loo faray xilka madaxa loo suray marka bisad baan ku mashaalaya bisad waa tan la yiraahdo hadiya jaraale bahasheena kulaasha la yiraahdo waanadi iyo dhinac walba la hadlayo waxa leedahay mar walba sidii loo wada hadli lahaa marka waxay ku gabagaboysmaysaa maansadu inaga mushkiladaha waxaan la hadlayaa marka inamadii aan maansada wadaagayna inaga mushkiladaha maqaarkooda sidanee mudiciga waxaan idhi goortuu maquurtay talo looga maarmeen la maxdumiye geesiga goortuu malmalashada in dheergarad mug weyn lihi xaajada murkacatiya ka meeraysta dhiilada hal door marti loo yahay magantiisa goortuu uga taga munaafaqa alla magana sawtaa dadkii moofo loo shiday alla magana sawtaa malabkii dhibcaayay u bixiyo magoolkii wax muhuubinayay macan jecesha loo diray alla magana sawtaa ceelkii milaalnaa murdiyeyda eeda la mishmishay laaskii alla magana sawtaa guntu muuqanaysay muulkiisa niib adag masafiyadu gilgilayaan anoon sii mushaaxayn waxaan maansadayda iyo mareegtii ku soo xidhay adigoo u meeldayey misna tala mashaawiray markaad geedi dheer tahay murtiguuna baa tidhi maaraynta howlaha muraadkiinumuu yahay marna ratiga ha u furin halla mooshin reeruhu markabkaaga yuu rarin malkadaada yuu tegin midhna yaanu kuu tarin yuu intaada maamulan ama meherad kaa dhigan markaa ninaan waxba kula qabanayni waa howlahaaga iyo waxa weeyaan iyo higsiyadaada aan waxba kaala qabanayn yuu qofkaasi noloshaada ka mid noqon inaanu soo gelin waka abwaanku dhinac walba horta abwaaniinta dadka aad soo daadeeray waliba daafanaya waxay wacad maasadan baa gabaygan baa maasadan baa wacdaynayso dhinac walba way ka hadashay waa tan la dardaarantay waa tan dhinac siday u hadli lahaayeen odhahdii waa laydin siiyey baa leeyahay afkuna idinma go'o abwaan oo dhan halabuur oo dhan allana ha idin barakeeyo nibadaa idin siiyey
dhinaca jacaylkii waxbaan dhinacaas aan ها odoonayaan qabay ها horta bal jacayl مهم. isku tiibiin hal sawir yaroo kooban ayaan naga siinay والله أنا ودرت شعيل بان بابا نشيل هذا هاي. مررك قاركود waayahay مركا waa maanse weliba aad hees ka samaysay ها واحس يرو أدوكو قابن